هذا وقتك ugu badan ku bixisaa maalintii أهلا صاحبي السود وهذا ومولد سامي مقال كلا عصب عاوة نص صوع عصتين واحد برنامج كيك مرتكو الله بدنا إن هالكاكم مقضى وحنيكم مرتكو يهين سؤالها ويدي وحنكون بلا بيا نك الشيء نك كونا تستدي ما حسست على ضال أمرك يقول سؤال لقوي صح أمرك يقول رسالة على ويديو وحنكون تستدي به صاحبك مولد سامي بعد ما نقول فرحسنا يا تنك يسبر الله كسر مقضى بلو سؤالات بلو واي لمدينا كيني هرينيا هني قاعد تشتري سومها أنا أده هرينيا سؤال شو الرسالة هذا قاعدنيا نصيب كي قاعد سومها تهرت هلا واي تنا قاعدنيا آخر السكولو شيء هل شيء أو ماني شيء هل شيء هل شيء أو وش عشاء قاب كي لجوس سكر كوريي شيء هل شيء أو تكوش عشاء قاب كي لجوس سكر كورين كاجها وعيابان لك كحصي حكم ذا إن أنا هرت قل هذا هاي الله نحرستي أبا هاي يضي باي هاي أنت دون أكسن وأهل العبادة دين تنجوس سكريين وعرفت أقوى ينام بقادين يا مانت good قاعدين سها واي ومحي waxa hadda naftaada culayska ugu badan ku haya wallahi waxa culayska ugu badan imika igu haya aniga waa mobilka halka yare hawariska ma aragtay laga eega iPhone halkaas ay xarunto marka eego 10 saacadood iyo 12 saacadood buu maalintii iga cunaa waxa weeye bariga hore ma ahaan jirin indhaha gura moogtay qof markuu telefoonka badsado way maawel question 2 لابد سوقف وهنت مثل مان هل أذيك بعمسوا ضعيف نمو والله وهنت هرتا وين عيبانت هاي قفكم هو يا أبا سويدين له قفك دو يو كتابك على السنة ما هو سؤال بكويدي مركي قدام بيساعد أيده قارما يهد محمد هيد والله سبت دو إذا صباح نمط باهد صباح نمط كا وعيرد أيدي بهرتها هي الله نحرسي أنا ذو على موتي مركا حج كذا كم مغنى إذا نادي نكاس وحن مركان يرابا وحن كل أي حج كمربن كوجين يدي الله تشاف كيا موتها هي وحسن كريدو كواحد صوتي وحن جعلنا هنا أيدي حج كجيو ويرا ما أنت صح هي ما أنت قدي مسألة أوكي waa maxay waxa ugu fiican ee aad isleedahay uu kugu amaani karaa saaxiibka rumaad waa maxay waxa ugu fiican ee aad isleedahay kugu amaani karaa qofka saaxiibtiin best friend وساكت شباب محد سلام عليكم اخترنا كبرد هي والله إني أنا واحد صار لها حتى تروي فربنا بسيا قار خلدنا هذا قار عواقب ما قالوا كل بالو ويجرا أوكي أشي كلا سؤال نقد أنت سؤال هذا سدحد ويا نديك وما هي حسوسته أقول قيمها وين يا الله هذا هي قف أتعش هي الله بالله حسوسته أقول وين أنا لا هي قف أن شعلها حويا حسوستي هو يدي الله ونحرستي سهر الجامع دب إلهي ونحرست أبانو شعلها هو يدي إلهي ونحرستو جندي الله كورابيو حسوستي وين أن الله وحي هيد هو يدي وحي قف مركزتان وحويديو حاجة لعقتي نص ساعة يغفرن مرة بدنا كم غرام قال هذا هلكي دقنا هو يدي شرتوان يدي كل جد وحيدين شرطة قابه وكبختر لا بدو الله ونحرستو إلهي قبرك ونور كحسوستا ساعات ياد وهي سؤال هذا سدحد وين ومحي هل شيء وأنا نفط هذا وقلين إني درنته والله هلك الشيء أنا نفط هذا وقلين إني درنته
waxa weeyaan waa daciifnimada in la igu dul socsocdo oo maaragtay bani aadamku ay kolba dee maaragtay siday rabaan ila dhaqmaan ma jecli inaan positionka inaan dareemo oo sidaa ay naftaydu dareento ha sometimes way dhacdaayo dee bani aadamka qaar baa maaragtay si aanad rabin kuula dhaqmaya laakiin haddana qofka bani aadamka waxaa looga baahan yahay inuu yaqaano maaragtay siduu u yidhaahdo may adoo xataa mararka qaar wax raba inaad ka tanaasuli karayso aad odhan karayso maaragtay maya ha igu soo degdegin diimaha 25 May waa maxay shayga aad baahida ugu badan u qabtaa shaygaan baahida weyn u qabaa waxa weeye inaan carruur dhalo aabe noqdo waxaan ku yidhi insha allah waladun saalixun yadcuu lah wiil ii soo duceeya ama gabadh waxay doontaa ahaatee ayaan jecelahay inaan helo adduunyada keeno kugu duceeyo bari soo duceeya markaa qabriga galo qabriga waayahay su-aasha xigta waxa weeyaan su-aashaadii afraad ha markaad keligaa tahay maxaad jeceshahay inaad ku mashquusho markaad keligaa tahay maxaad jeceshahay inaad ku mashquusho maxaad ku mashquulaa markaan keliga yahay maanta waxaan ninkan mawlidaha saaxiibka lahay ayaa galmad ka qoray wallahi wuxuu yihi qof kasta social mediaiisa yar baa ugu filan mashquul waxaan aragnaa hablo iyo inama sawirra gelgelaya oo deedna ogaasi wuxuu yihi qof kasta inta yaree ku xidhan ama Instagram yar ha lahaado ama TikTok yar ha lahaado intiisaa yar ayaa ka badan ba ayaa mashquul ugu filan ba intaasa waadiwa waxay haayeen dad team bay haayeen habla ah marka waxaan ku midba marba sawir galaysay mid kale mid inanu sawiri isagoo horeeyay sawir qaado aha markaasaan saasaan ninkan u eegnay markaasaan ku yacni imka dadkaas waxa jaan boogu filan qof kasta wallahi warti platformyada inuu soo istaa dadkuna si kala badbataan oo qaar TikTok dad badan ha ku xidhnaadaan qaar dad yar laakiin qof kasta inta yar uu haysto markaa ayaa mashquul ugu filan ba marka anigu waxaan ku mashquulaa badanka waa social media hayga bariis kana daan kala soo baxaa bariisayn weydii walaalka su-aashaadi waa maxay shaygii ugu qosolka badnaa ee aad maqashay aragtay ya salaam waa faarax duuf baaba maalintii odayga faarax duuf ayay qisada le waxay ka dhacday yufle horta qisooyinka yufle way badan yihiin moogta yacni waana sheekada kugu qosolka badnay ninkaa faarax duuf la odhan jiray waxaa nin moogtay horta aad iyo aad u cadho badan oo dagaal badan oo reer ahaanna mooye annagana neceb iyo mooye aabbahay inay isnecbaayeen dadka hore mooye horta waxay leeyihiin baa lagu yidhi moogta nacayb horoo jiray moogta adigu markuu meel laga arkorin jiray waa ku ilmo maaweelo bakoorad ayuu noo dhigisa zakad maalin baa goron noo dhigiyo zakad maalin kasoo tuuro magaasay surkaa naga wada qabsato saan ushii kala cadhay si noo riyeelaan markii dambe gurigeyga gale marka oday aad u qosol badan baa allah u naxariistee faarax wuu dhintee faarax allah u naxariisto su-aashaadii lixaad waa maxay guusha ugu weyn ee aad ku faanto guusha ugu weyneyd ee aan anigu aaminsanay inaan xaqiijiyo waxay ahayd inaan soo cimraystay maasha allah waa arrin la wada og yahay guultaa ka ballaaran may su-aashaydu waxay noqonaysaa sida tan sheeg waxa aad ka weynaatay haddana aad jeceshahay inaad samayso kuratul qadam ila liqaa wax baan wadan jiray xanaqaad la odhan jiray weliba anigu waxaan ka weynaaday ee aan weli jecelahay miyaad taqaanaa waxa weeyaan hablihii nambarada inta laga daba tago laamiga wadada inta kaga soo baxda laga soo qoran jiray maarin la odhan jiray waa ii sheege ay ku odhan jirtay qaar anaa tag coationkan anay maraysaa shay sheeg bay tidhi sheeg buu yidhi hal shay oo hadda noloshaada ka mid ah oo aad
tabi doonto hadhow ahay igama dhigo mid ka qoomameeye waa dhalinyaronimada midkii garta ilaahay iga dhigo waayahay su-aasha xigtaa waxay leedahay halkeed filaysaa in aad 10 sano kadib gaari doonto 10 sano horta waa waqti badan baa ka dhiman marka dhinac laga eegana waqtigu cararayaa oo iska bari laakiin waxaan rajaynayaa 10 sano kadib inaan siyaasaddan ku jiraa marka madaxweynaha u tartamayaa ama malaynayaaba insha Allah aniga awogay Allah u naxariistay tuulo dhan buu aasaasay oo maaragtay aan maalin dhaweey documentary ka soo sameeyay wuxuu ahaa nin maaragtay bulshada dhexdeeda magac ballaaran ku leh karti badan oo wax badan soo kordhiyay marka insha Allah awogay wadadii uu jeexay aabahay sidoo kale waxa weeye ahdaaf badan iyo goals fara badan buu lahaa in aan waxyaabihii aanay xaqiijin iyagu aan xaqiijiyo oo waxa weeyaan magacoodii aan meel fog gaarsiiyo insha Allah ayuu qorshaygu yahay insha Allah dadkana aan wax u qabto saarkaysan baan aniga ninkani ciyaarta wax maraysa 7 ama 7 ninka yar ay maraysa okay su-aasha ugu dambaysa oo barnaamij kasta aan qaato haddaan isku dayo waxa weeyaan maxaad samaysaa markaad xanaaqsan tahay horta dadka bini'aadamka waxa jira qof si uu xanaaqa qof waxa jira mar walba isagoo iska xanaaqa oo yani wax kasta ka xanaaqa oo qof aad iyo aad waa dadka dabeecad digaaglayaasha kuwaas yaan khuluqul fasal lahayn dabeecad marka anigu yani ma yihi horta dadka aad markaba wax xanaaqa ma xanaaqoodu dhow yahay laakiin haddaan xanaaqa waxa iga biyo markaan seexdo markaas ma xanaaq iga baa saarkiisa barnaamijkii Sam ee quruxda badnaa halkaas inoo soo googobay saaxiibka YouTube-kiisa oo la socotaan kor u qaada fikir waa nin aad u qalbi wanaagsan waxa ku yiri qalbi qaada digala la qaada waa nin fiican aad buu fiican saaxiibayaal la booda